qoyan jaajiira kuna sugan xarunta gobolka Togdheer maanta waxaan halkan fariin adag uga dirayaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxay nagu soo foole doorashooyin dhawaan ka qabsan wadana dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay nagu soo dhowdahay mujaahidka maanta waxaan coddan u sheegaya inuu intaan doorashada gaarin si degdeg ah xilka ugu wareejiyo wasiirka gudoomiyenimo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland kow waa intaan doorashada gaarin shuruudda ugu horeysa ee aan ku xidhno haddana aqoonyahanka waxgaradka meelweynta ka soo jeeda Saraar iyo Sanaag iyo Togdheer fari wax madawada ku jira anagu doonayno waxa weeye shaaca ka qaado nooc cadde inta aan doorashada waxaan ku xisaabtano oo cad oo aan codka ku bixino dikale wax cod oo nalkeeliya ma jirto waa inaan wax cad oo inoo cuntami kara aynu codkeeno u hurna hadhowta haddii doorasho dhacdo oo muuse guulaysto waxa weeye wax lagu soo jimay sidii aan ka yeelay ee shaqada haduu yeeli waayo dee talanu saynin doona taladaasoo mar labaad aanu isugu noqon doono garadag shir garadag mar labaad aanu isugu tagi doono waanu ka tashan doono marka ayaha mustaqbal ee halka aanu yaani dee marka aanu ka dejin doono ila sudunta maaha waxaan kaga hadlayaa Mujaahid Muuse Biixi Cabdi janankii Cismaan Dacas ninkaas waa nin janan ahaan jiray waa indhalaayahay wuxuu ka cabanayo wiilyaha ka arkayo maan ku sugnaa caasimada Hargeysa beer uu haw iga qaaday muuse hadday jirto beertaas iyadana waxaan leeyahay intaan doorashada la gaadhin ninkaa indhaha leh ee jananka wixiisa u celi shuruuddaas waxaan ku xidhayaa haddii kale cod aad ka helaysaa ma jirto aad ma gelaysaa